waftigii ka socday beesha caalamka ee Somaliland ugu sugnaa sidii ay xal waara ugu heli lahaayeen khilaafka ka dhaxaloosan xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Professor Aadan Xaaji Cali kulankaasi oo saacado badan qaatay warbaahintuna ay dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa uu warfidiyeenka uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali waxaana kamid ah hadaladiisii waftigii beesha caalamka yimi inoo yimi danaynayay arrimihii gudaheena iyo doorashada imanka taagan ismarwaageedu taagnaa markaa maxkamadda sare soo booqdeen iyo maxkamadda dastuuriga ah waanu is aragnay waanan soo dhaweynay wixii ay wax iga weydiin karayeen way iga weydiiyeen waxaanay u badnayd guddigan imanka dhexdhexaadinta gashay go'aanadan ay soo saareen bal xagga sharciga iyo wixii la xiriira marka waanu u sharaxnay wixii aanu sharxi karaynay maxkamaddu ilaa imanka dee rool male waayo guddigana meel kama soo gasho wax hawlo oo arrintaa u taallaa ma jirto laakiin maadaama stakeholder taho maxkamadda dastuuriga iyo tasaraba labaduba ay soo galaan doorashooyinka iyo kaysaska siyaasiga ah ama dastuuriga ah ee xagga dastuurka la xiriira ay soo galaan rool weyn bay ku leedahay marka wixii de xagga sharciga iyo ay wax naga weydiiyeen iyagaana soo booqday iyagaa dalbaday iyagaa noo yimi wixii waxbaanu ka siinay waananu soo dhaweynay runtii aad baanan uga mahadinay waayo waa caalamku inay danaynayaan Somaliland oo wafdiga intaa leeg loo soo dirayo ayaa arrin qiimo leh marka arrinta waan uga mahadnaqay anigoo daafkii maxkamadaha iyo garsoor ku hadlaaya inay Somaliland daneeyaan oo ay yimaadaan marka intaasay ahayd ujeedadoodu kulankani maanta ay la qaateen wafdiga ka socda beesha caalamka gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ku soo beegmaya kadib markii ay kulamo kala duwan la qaateen xisbiyada siyaasadda ee Somaliland iyo ergadii dhexdhexaadinta ee khilaafka ka dhaxaloosan xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaridka ah Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa